waxa uu ka dhacay qaraxan meel aan sidaasi uga fogeen xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana qaraxa loo dhigay gaari nooca raaxada ah oo dawladda federaalka ay u adeegsato wacyigelinta iyo sida looga hortagi karo xanuunka COVID-19 waxaa la xaqiijiyay in qaraxaas uu ku geeriyooday wadaha gaariga la beegsaday waxaana ku dhaawacmay 3 kale oo markaa dhaawac culus soo gaaray sida la sheegayana waxa ay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda sidaas waxaa warbaahinta nation u xaqiijiyay ila kala duwan iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda gaariga la qarxiyay ayaa waxaa gaaray burbur xoogan hay'ashee gaariga ayaa waxa uu ka mid ahaa gawaari ka howlgasha degmooyinka gobolka Banaadir oo ku xiran codbaahiyaal dadka markaa lagu gaarsiiyo inay qaataan fariimaha looga hortagayo faafitaanka xanuunka COVID-19 howlwadeenada la socda gawaarida ayaa dadka ku wargeliyay inay xirtaan marada afka iyo sanka daboosha ee face mask loo yaqaano iyo sidoo kale in la kala fogaado gacmahana la dhaqdo laamaha ammaanka ee dawladda federaalka iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Kaaraan ayaa goobta tagay waxaana intaa kadib la xiray goobta uu qarax ka dhacay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Carab ayaa waxa uu ka hadlay qaraxaas waxa uu sheegay in markaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir uu tacsi u diray askarigii ku dhintay qaraxaas waxaana uu tilmaamay in qaraxaas la eegtay ama lagu beegsaday waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir shaqaale ka tirsanaa magaalada Muqdisho gaar ahaan ee degmada Kaaraan qarax lagula eegtay qaar ka mid ah waaxda caafimaadka howlwadeena ka tirsan oo ku guda jiray sidii bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir loogu wacyigelin lahaa caabuqa corona virus gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa uu tacsi u dirayaa marxuumkii ku geeriyooday qaraxaas lala eegtay howlwadeenada ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asigoo sidoo kale eebo ugu bariyay dadkii iyaguna ku dhaawacmay ku guda jiray hooshii loo qabanayay bulshada ahaa in laga wacyigeliyo caabuqa COVID-19 wuxuuna cambaareeyay falkaasi asigoona sheegay in falkaani uusan waxba u dhimi doonin howlaha wadaan waaxda caafimaadka iyo dhammaan howlwadeenada maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar isla markaana howlihii loo qabanayay bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir la sii dardargelin doono amnigana wax laga qaban dhinaca kale degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoosada Fagax iyo Soos waxaa ka dhacay qarax miino kaasi oo haleelay gaari uu leeyahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Yaaqshid Cabdullaahi Shiilow waxaa qaraxaas ku dhintay sida la tilmaamay 6 qof 5 kalena way ku dhaawacmeen 4 ka mid ah ayaa la sheegay inay ahaayeen askarta ilaalada u ahayd gudoomiyaha degmada Yaaqshid inta kalena waxaa la soo wariyay inay ahaayeen shacab al-shabaab ayaa sheegtay qaraxaasi maxamed yaxya jiino warbaahinta nation muqdisho